habeen wanaagsan fiid wanaagsan wadahadallada dowladda Soomaaliya iyo Somaliland ee magaalada Istanbul ayaa furmi waayay kadib markii labada dhinac ay isku afgaran waayeen ergada shirka ka qayb galaysa. Somaliland ayaa diiday inaysan hor fariisan karin xubno ka soo jeeda deegaanada Somaliland oo ka mid ah ergada dowladda. haddaba wadahadallada furmi waayay ayaa goor dhaweyto Caasho Cuud ka wareysatay Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ah wasiirka madaxtooyada Somaliland oo ka mid ah ergada Somaliland ka socota, waxayna weydiisay maxaa keenay inuu shirku furmi waayo. dabcan wala sidaa sheegtay shirkii muu furmin, waxaana uu furmi waayay in lagu heshiin waayo la isku afgaran waayay qaabkii iyo shirku hanaankii ku furmi lahaa, oo haddii aanu Somaliland nahay aanu horena u diidnay imakana u diidnay inaanu dad reer Somaliland iyagoo ku jira shirka ka qayb gallo, marka iyaguna mowqifkoodii ku adkaystaan mowqifkayga aan ku adkaysanay, marka shirkii saas aan u furmay. marka hadda rasmi ahaan kulankii ma furmi waayo ma lagu kala tagay mise waxaa jirta waan la doonayo in la isugu soo dhawaado oo kulankaasi uu ku ambaqaado, mise rasmiyan waa lagu kala tagay hadda? maya rasmiyan waa lagu kala tagay, inkastoo de magaalada aan laga ambabixin oo qolo waliba diyaaradeedii sugayso iyo waqtiga ay dhoofi lahayd, laakiinse waqtigiisa uma kaya hadhin shalay iyo maanta shirku ahayd inuu socdo, labada midkoodna ma furmin. rajana kama qabno inuu furmayo shirkii sidaasa lagu kala tegay oo maanta aan isku macasalaameynay. waxaan rajeynaya beritoole qolo walba inay u boqooli doonto baraheedii iyo yani meeshay ka timi. marka marnaba labadii wafdi ee ka kala socday Somaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya marnaba la isma arag siday doonto ahaatee? maya marnaba lama kulmin, oo dee aragtida dadku waa is arkayaa isu muuqanaya hodhalo isugu soo gelaya, laakiinse aragtida kulan lama kulmin oo shir ma furmin. laakiinse dee waa laga yaabaa guddoomiyaasha iyo inay markii dee laga wada hadlaya mawduuca iyo markii qolada Turkiga noo imanaysay in aragtiyo noocaas, laakiinse wax official oo furmay haba yaraatee ma jiraan, marka yani la isma arago dee laguma kulmin halkan. xirsi dowladda Turkiga dabcan idin martigelisay labada dhinacba, marka dowladda Turkiga kulankan furmi waayay maxay ka tiri? way isku dayeen dadaalo runtii diblomaasiyiintii iyo dadkii mas-uuliyiinta joogay way isku dayeen dadaalo ay labada dhinac uga dabqaadeen, marka waxaan u arkayay dee inay ku qanceen xujadayadii iyo aragtidayadii oo ahayd nimankan intaanay kasoo dhoofin magaaladoodii iyo Muqdisho intaanay kasoo dhoofin baanu u sheegnay, markii naloo soo sheegay inaanaan aqbalaynin qoraalla waanu ugu diray iyaga iyo Turkigaba inaanaan aqbali doonin lana fadhiisanayno hor fadhiisan cid kasoo jeeda dhalashadooda kasoo jeedo mandaqada Somaliland, marka may runtii dhageysan. qolada Turkiguna marka way arkeen de qoraaladii iyo evidence-kii way arkeen iyo ama daliiladii way arkeen, waanay ku qanceen, waanay qoladii kale ku wargeliyeen in dee foolka ay leeyihiin. marka ma jira dadaal kale oo la wado in mar kale dib la isugu soo laabto, bal iyadoo intan la isaga soo dhow yahay oo intan laga dabacsan yahay labada dhinacba? ballan iyo waqti hadda laguma kala tegin, laakiinse dee waa laga yaabaa. waxaad markaa xirsi ka warantaa mar haddii adinka aad mowqifkiini ku adkaysateen ee ah in rag degaan ahaan ka soo jeeda Somaliland oo dowladda Soomaaliya ee federaalka ay soo dirsatay inaan kala hadlayn arrimahan dhex yaala Somaliland iyo Soomaaliya, ma laga yaabaa inaad adinku caqabad ku noqoteen kulankii furmi lahaa iyo wax allaale iyo wixii la isla gaari lahaaba? haddii adigu aanad dee qaadi ka noqonayno gargaara nagu qaadaynin suxufi baan de adiga ku arka, laakiinse haddaan adigu qaadi ka noqonaynin waxaan u aragnaa inaan anagu caqabad ku noqdeen ciddii keentay waxay shirku furmi waayo oo ah niman ka soo jeeda daanteedan oo yani dadkayagii ay soo qorteen oo aanna matelin annagu umaanaan diran dad xamar dowlad Somaliland la yihahda baanu nahay, dadkeedu doortay cod ku timi, cid aanu u diranay xamar oo namatasho aanu u diranay oo dowladdeedu u dirtayna haba yaraatee ma jirto. marka dadkii noocaasa iyagu ay shaqada qorteen ay soo kaxaysteen ayaanu ku niri de annaga waxa weeye la geli mayno shirkii, marka runtii saasay ku dhacday, laakiinse de adigu go-aankaaga iyo mowqifkaaga adiga u xora ka wari ahaan. xirsi waxaan rabaa in wixii meesha dhacay iyo dadka Soomaalida ee isku kiin dhageysanaya ee labada dhinacba wararkooda ay soo gaarayaan inaan u bayaamino wixii halkaa ka dhacay. anigana dhexdhexaadan ka ahay oo wasaad sheegto wariyaan ka ahay waxba ma go'aaminayo, laakiin dadka Soomaalida ah ee idin dhageysanaya markay idin maqlaan in dad ka soo jeeda Somaliland oo dowladdii Soomaaliya ka tirsan aad kulankii u diideen, dadka Soomaalida idin maqlaya maxay idin qaadan karaan baad isleedahay ka Somaliland ahaan? waxay noo qaadan karaan inaan saxanahay ka Somaliland ahaan. Soomaaliya iyo Somaliland waxay heshiiyeen iyagoo laba state baan imika u wada hadlaynaa, oo state Somaliland la odhan jiray Somaliland Protectorate oo Ingiriisku ictiraafay oo haystay
oo waxaweye gumaysiga ingiriiska uu sidaa dowladnimadii ku siiyey iyo state Soomaaliya la odhan jiray Italy Soomaaliya oo iyadana uu Talyaani haystay oo sidaa ictiraaf ku siiyey ayaa heshiiyey oo ku heshiiyey wixii Soomaaliya Republic la odhan jiray markii ay burburtayna ilaa hadda wadahadaladii furmay ee labadan daraf u furmay ka hor lama wada hadal ee intii hore waati qaska iyo mushkiladu dhaceen marka waxaan u aragnaa maadaama la wada hadlay wara inuu wada hadalo sidaynu kala dhaqaaqi lahayn u wada hadalo ay cidina khasbi mayso qofna la khasbi maayo marka in cid anaga ka tirsan deegaankayagii iyo dalkayagii ka tirsan loo yeedho oo nalaga horkeena waxaan u aragnaa inay qadaf iyo dalqaaf tahay mar haddii ujeedada guudba ay tahay in la wada hadlo muidnaan wax allaale iyo wixii aad qabtaan idaan u sheegi karin wafdiga dhinaca kale ka socda idin hor fariisan lahaa maya cid waliba dadkeeda anagu dadkayaga miiniskaana kula hadlayno iyo dariiqaan u marayno annagaa naqaana dadkayaga in mid kale soo kaxaysato oo ay dawlad kale soo kaxaysato na horkeento waa qalad annaguna dadkoodi inaan soo kaxaysano horkeena runtii sax maaha marka waxaan kuleeyahay dee laba daraf oo laba dawladood oo markii horena heshiiyay imkana wada hadlaya marka maadaama aynu sidaa wada hadlaynana waxa fiican in qolo waliba ay wafdigeedii soo kaxaysato wafdigeediina kadibna wafdiga kale uu sidaa ku qaabilo oo aan wax condition in laga gudbin horena uma dhicin intii aan dee halka ka wada hadlaynay mar walba waxay ahayd inaanu yani ay ahayd shardi ahayd in labada daraf ay wada hadlaan laba dawladood soo kala horjeeda oo ku wada hadlaya yani labada daraf ku wada hadlaya waa tahay xirsi marka wafdiga hadda ka socda Somaliland goormuu dib ugu laabanaya magaalada Hargeysa waxa noo qorshaysnayd in berri toolaanu baxno waqtiga iyagii hore tigidhadu noo buuq gareysnaana waxba iskama bedelin